إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة، قال تعالى في محكم تنزيله: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. أيها الأحبة، آيات كاين أخرني من سورة ياسين، وقصة كمذا قصص كربي وقرآنك كقور رميه. إلهي سبحانه وتعالى وحكى والرمية مقاله لو صدر إلا بالرسول وبينسي، والرسول صدحات لصدري وبينسي، ومقاله صدح رسول يمادين وصدح دي الرسول بالبينيي. ربي سبحانه وتعالى وحكى والرمية مركاسي نين مؤمنة ونساق الرسول هين oo aan joogin meesha la isku hayo, laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala qisadiisa uu ka yeelay qur'aanun yutlaa ilaa yowmi alqiyaamah, qur'aan la akhriyo ilaa iyo maalinta qiyaamaha. waxaad qiyaastaa qof bini aadamah oo siiqa nakira ilaahay uu soo arooriyey, rajul baa ilaahay ku tilmaamay, laa shaara walaa sifa, wax kale oo la raaciyey ma jiro, wax taytale ma wato. إلهي أنتو الرجل كتل مامي ولبس غنى كراء صائر أرتي. أي رب سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات كسوة وحيودي نكاسي قصديسة. إلهي وحلي وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وحكيمي مقالة هلك ودن بيسة قف قوبت شوقي ما هين من أقصى المدينة بكيمي با إلهي كسفينية. waxaa kaloo ilaahay ku sifeeyey inuu rajul yahay. dadka badh waxay isku mashquuliyaan magaciisa iyo magaaladu jooga iyo waxaas muhim maaha. hadday muhim yihiin rabbaa ka warrami laha. qur-aanka qisaskiisu uma qorra sida qisaska bini aadamka loo qoro. qisaska bini aadamka waxaa loo qoraa in la horraysiiyo magacyada meesha uu qofku joogay, magaaladuu joogay, wakhtigu ahaa. qur-aanku inta badan sidaa uma warramo. qur-aanku wuxuu tilmaamaa mawdic alcibra, meesha ay ku jirto qisada danta laga leeyahay. saa awgeed ilaahay ninkan magaciisa ma sheegin, madiinadu tay tahay ma sheegin. waxaa la yidhi ninkani wuxuu ka yimi min aqsa almadiina, magaalada xagga u dambaysa, meel fog. weliba waxaa laynoo sheegay sifada uu ku yimi, rajulun yascaa baa ilaahay yidhi, ninkaasoo rooraya, ordaya. naskan qur-aankii wuxuu tilmaamayaa qofkan muslimka ay mas'uuliyadda weysa saaray
ismuu odhanin war 3 rasuul baa la beeniyay adigu maxaad sheegaysaa ilaahay qisada wuxuu ku tilmaamayaa 3 rasuul inay magaalada joogaan idinka wax laga yaabaa inaad istirahdaan 2 wadaad ama 3 wadaad baa joogay adigu maxaad sheegaysaa ilaahayna wuxuu tilmaamayaa meel 3 rasuul joogto oo 3 rasuul baa la beeniyay muuquusanin oo ismuu odhan oo rasuul baa la aqbali waayo adiga maxaa laga yeelayaa ee wuxuu dareemay mas'uuliyadda dacwa diintan in mas'uuliyadi ka saaran tahay wuxuu dareemay dadka quluubtoodu inay biyadillaahi ku jirto quluubta bini aadamku waa biyadillaah subxaanahu wa tacaala falsafo badan iyo wax badan uma baahna cidda alla hanuuninayaa kalimaad yaroo kooban bay ku hanuuntaa sidaa ogeed buu ninkani yimi isagoo leh ittabicu almursaliin doorku qaadanaya waa intaa uun waa rususha raaca qisadu waxyaabahay tilmaamayso waxaa ka mid ah mas'uuliyadda qof kasta oo muslima diintiisa ka saaran dadkii muslimiintii hore bimujarad intimaa'ihim ila diin kaanuu ducaatan lilaahi subxaanahu wa tacaala markay islaamaan laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah yidhaahdaan oo nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam maalin 2 casho 3 maalmood la joogaan kadib waxay qaadi jireen xilkaa inay tolkood diinta ugu yeedhaan cilmi badan uma baahna inaad dadka diinta ugu yeedho waayo diintu usuul bay leedahay furuucda culammadaa dhigta diintu usuul bay leedahay ilaahay waa keliya caabud nebi maxamed waa rasuulkiisiiyo rumee salaad tuko arkaan alislaam waa wada taqaaniin arkaan uliimaanna waa taqaaniin walaslu fi ddiini haada asalka diintuna waa taasi waxa dadka loogu yeedhaana waa taasi sidaa ogeed baa saxaabadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam bimujarad ay islaamaan ayay xilka diintan qaadayeen inay muslim noqdaan oo ashahaataan ayay diinta ku qaadayeen xilkeeda bale nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay markuu ku yidhi qum faandir imise qur-aanka soo degay riwaayaadka qaarkood waxay leeyihiin waa suuraddii 2 oo markaa dhowrka aayadoodee iqra ugu horreeyo qura soo degay 4 suuradood qaybahooda u horreeya ayay kullulmufasiriin isku waafaqsan yihiin inay yihiin qur-aanka intii u soo hordegtay waa iqra bismi rabbika aladii khalaq aayaadka ugu horreeya iyo yaa ayuha almudathiru qum faandir yaa ayuha almuzammilu qum illeyla ilaa qaliila nuun waalqalami wamaa yasturuun 4 suuradood bay mufasiriintu kala horraysiiyaan ayan kaanad xataa haddaad tidhaahda 4 waa tii u dambaysay qur-aan imisaa soo degay intaasuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo soo waxyooday laakiin waxaa la yidhi qum faandir kacoo dig idan dadka in loo digaa cilmi tiro badan uma baahna waxay u baahan tahay qofku inuu mas'uuliyaddaa qaado nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam markuu diinta dadka u sheegay abibakar sidiiq baa rumeeyey abibakar isma odhan nebigaa jooga adigu waxba ha sheegin bale culammada taariikhda qaar ka mida waxay tilmaamaan 10 almubashiriin inta u badan inuu abibakar islaamiyey طلحة يا أبو عبيدة يا عثمان يا الرقاسي ميزانك أبي بكر بيكو قرين أبي بكر با أنتو إسلاميين نبي قو كان عليه الصلاة والسلام إذن حلك الدين تو حسارين قف كستو مسلمة وحانو كسارين دين تن إلهي وقاضو ودتك قارسيو نبي الله محمد وآخر الرسول نبي كدن بيي الرسول كدن بيي لما صود ريو إساقا وقدن بيي انتو النبي محمد قاري دوني ده جزيرة العربية كما بحي النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك إلهي وحلي نذيرا للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا دادور دنبان كو صادري وهدي دادور دن لو صادري إسنان جزيرة العرب كبحين سيدابي كل عيسى وحي كل عيسى قف كستو مسؤولة بمسؤولية قف كستو مسلمة أي مسؤولية داسي سارنتي ولذلك markii
xajkii uu nebigu soo xajay calayhi salaatu wasalaam saxaabada uu la hadlayay wuxuu ku yidhi balliquu cannii walow aaya war dadka iga gaadhsiiya aayadna ha noqotee baa ilaahay ayuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam balliquu cannii walow aaya qur'aan imisaa qaybsantiin ninka ugu yara faatixada qaybsani 7 aayadood buu hayaa qofka ugu yar haddaad daaci muslima tahay dad badan oo aanay faatixadu gaadhin baa idinla nool dad badan oo aanay faatixadu gaadhin baa idinla nool nebiyullaahi muxamedna calayhi salaatu wasalaam adaa wakiil ka ah haddii isaga la yidhi nadiirun lilcaalamiin baa tahay adigu ku soo gaadhsiiyo xilka ku saaray adna intaad gaadhaysa inaad gaadhsiisaabaa korkaaga saaran ayuha alaxibba laysma yidhaahdo armaa laga aqbali waayaa ninkani 3 rasuul baa la diiday isma odhanin war nimanka 3 rasuul diiday dee adigaba ku yeeli maayaan aduu meel 3 caalim oo muslim rasuulka kaale 3 sheekh oo culamo oo ka dambaysa meel nimay la hadleen ama qoom ay la hadleen oo ay diideen adnama u soo xaydxaydan lahayd oo ma soo odhan lahayd wuxuu sheeg se waxaad odhan lahayd culamadii bay beeniyeen kuwa culamada beeniyey maxay sheegayaan qof walba meel baa kelmadiisu ka socotaa ninka waayeelka ah ninka taajirka ah ninka sultaanka ah nin walba dad baa ka dambeeyo ereygiisa qiimeeya وهدو كو يراهدو سيدا هلا يلاني كو سو علينا مصالح اي كو قبان درادود إلهينا القرآن كو حكوت ليهي لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إلهي عدنا ما تكليفنين وحكو سيي مويانه آخر إلهي وحكو ويدين يا وحكو سيي محات سلام كو قبط هدا تاجر هاي محات كو قبط تجارتا دو حشي كريسي حولها قاد وحكو قبان كريسي هداد سلطان هيدي هداد عاقل هيد محات كو قبط هداد افتهن يقبياها محات كو قبطي إلهي الدقم كي يفريد كآخرة حتى يسكسي الله حسابي مايو نفو البوحي لسيا لغو حسابيا قف ولبدين تنمركا مسؤول بكيهي ساوغيد دور سببات بوين الدين تو حنبارتا كو وين دو حنبارتا إلهي حجدي سين الدتك كو أكتو رسلا مبشرين ومنذرين لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل دتك الله ما شيغا او قرا الراعي مايان ييكو الراعي حجده كدلوك ويا النبي عليه الصلاة والسلام حتى الماما يا قيامها الرسل يا النبي ايمن دونه قيامها النبي با ايمن دونه ان عيد بالله سعون مد با ايمن دونه قف لا سocdo مد با ايمن دونه لبا لا سocdo هدا وا النبيو ما دعودود مفاشل بيهيد مايا قوم دغا ادق با كو بيغمي لكن واجبكي اها اخره اناني عذر دار هلين بكو اوغي إلهي سبحانه وتعالى وحلي الرسل اي منذرين تي وحن سو ديري لا يكون على اناني هلين اخره وح عذر دار اناني هلين عذر دارك ادغا لغا ربا اناد فيدو شقداده ما هيني ددكو إلهي الراعان انان الراعين إلهي با تاكو شقله adigu inaad bayamiso cadaysid dadku inay ilaahay raacaan ba adiga dushaada saaran sida awgeed ayaa qoladii la yiri lima ta'iduuna qawman ilaahu muhlikuhum maxaad u waaninaysaan duul ilaahay subxaanahu wa ta'aala halaagayo nimankii sabtida ugaadhsaday ee la yiri sabtida ha ugaadhsanina bulshadii 3 qaybood bay noqotay qayb ugaadhsatay farsamo iyo xeelada intay samaysay iyo qayb tidhi war ka daaya iyo qayb iska aamustay qaybta iska aamustay in badan quraanku wax kama sheegin laakiin wuxuu sheegay warkoodii ahaayo kaliya lima ta'iduuna qawman lahum hulikum wa nimankani diinta waa ogyiin in laga mamnuucayna waa ogyihiin maxaa u waaninaysaan kuwan ilaahay baa halaagaya way dhaga xidhaane maxay ku yiraahdeen qaaluu ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaquun waxaanu waaninayna laba shay معذرة إلى ربكم آخرة إننا أنغو حجدي كو أغني إننا الله نمادان آخرة أنغا نلو قبصان دادك لنو شين هدا يرهدان دينتو نمي سو قارن إذن كالا إذن قبصانا يا إذن كالا إذن ويديني يما كو أكتين مساكو ميدان أغن دادك أني وحي ليهين وحانو دادك وحوقو شاقنا لبا سببات معذرة إلى ربكم إننا مركو هوري
xujada ku oogno si aakhiraan cudurdaar u helaana waanu u badbaadno idan adiga badbaadadaada ku xidhan inaad dadka diinta gaarsiiso iyo walacallahum yattaquun iyo la arkay inay iyaguna ilaahay ka cabsadaan oo waanadu dhagahooda gasho labadaba waa rabnaa bay leeyihin idan dacwada waxaa loo sheegaa inaad xujada dadka ku oogto waxaa loo sheegaa inaad adiga aakhira cudurdaar ay ku noqoto waxaa loo sheegaa dadku de inay hanuunaan dadku inay hanuunaan inagu inta badan dadku hanuuni maayo waa hanuunayaan tun baynu moodnaa inay tahay sababta wax loo sheegayo laakiin sababahaas oo dhan ayuu qur-aanku inoo tilmaamaya ayuha alaxiba ninkani mas-uuliyaddaasuu qaaday inuu magaalada halkeeda u dambaysa ka yimaado isagoo weliba rooraya warka uu sheegayaana waa kooban yahay ittabicu lmursaliin buu leeyahay ittabicu lmursaliin taariikhda islaamiga marka laga warramo in badan kutubu taariikh waxay ka warramaan kutubtana taqaaniina taariikhdu inta badan taariikh uljuyuushi waalcuruush bas boqorkaasaa joogay boqorkaasaa bedelay boqorkaa kala qabsaday boqorro iyo futuuxaad gaalaa lala dagaalamay magaalo heblaayaa la furtay magaalo heblaayaa la furtay laakiin taariikh ka muhiimsan baa jira oo dhul kale ku qoran taariikhi fatxi alquluub dadka quluubtooda yaa furtay caalam alislaami min mashriqihi ilaa maghribihi dadkan islaamay askartu wax ma islaamiso askartu magaalay dumisaa ama qabsataa dad bay xoog ku qabsadaan laakiin yaa islaamiyey dadka juyuushun min adducaat baa islaamiyey dad diin waday oo dadka diin u sheegayo dantoodu ahayd inay dadka diinta gaadhsiiyaan dadkaasi in badan oo ka midi waa aljundiy almajhuul waa dad aan taariikhduba qorin misaalo basiitaan ku siinaya caalam alislaami niman tataar la yidhaahdaa jebiyey magool tataar bariga fog bay ka soo bilaabeen jayna agagaarkiisa dabeetana muslimka dowladihiisii oo dhan waa soo jebiyeen ilaa yabay soo gaadheen falastiin markay marayeen dhexdeeda ayaa muslimiintii masar joogtay is urursatay oo jebisay muslimiinta masar zaxfigii unbay joojiyeen intii kaloo dhan caalamulislaami way haystaan wax ciidan oo xoreeyey miyaa maqasheen